waxaan ku celinayaa mar kale inuu madaxweynuhu u hoggaansanaado sunnadii ahayd 4 sanaba ay dalka doorasho ka dhacdo una diyaar garoobo in doorashada 4 sanaba mar ahayd oo aysan marna suurtagal ahayn in aan inuu sidoo rabo uu shaatigu u tasho waxgaradka Soomaaliyeed sida culimada odayaasha ganacsatada haweenka dhalinyarada iyo aqoon-yahanada waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan doorkoodii badbaadada dalka soo dhawaada saaxiibayaal ninkii Rooblaha oo mar soo noqday ra'iisul wasaare hore waxa la sugayay khudbadiisa in uu maanta dhinacay farabadan ay taabanayso yacni khudbadiisa waxay leedahay xamaasad gooni ah Rooble waxa uu joodiyay ayaa waxay khudbad inta badan bulshada Soomaaliyeed ay iswada lahaayeen ninkan Xasan Sheekh Maxamuud toos u weerari doona balse waxa uu joodiyay waxay khudbad aan micno lahayn oo inta badan hadaladiisa aan saameyn u keensanin ama saameyn u san yeelanin waxa isla Rooble inta badan aawa ama maanta hadalayn farabadan ay waxay ka dhalan doontaa hadallada ama qoraalada soo joodin doona hadda waxa u maleysaa Rooble in xitaa uusan inta badan maadaama ra'iisul wasaare xataa uu soo maray haddaba Rooble waxa u maleysaa maadaama uu ra'iisul wasaare hore soo maray xataa hadallada qaar uu ku hadlay inay la xansaarneen inta badan waxa arkaysaa Rooble in uu fiirinayo warqad yacni anasha inta badan uu ku soo qorqortay asaga wixii markaas uu rabay inuu uga hadlo haddaba Rooble sida uu hadlay iyo sida ay musharaxiinta kale u hadleen wax isku dhow oo Ilaahay abuurtay ma laha Rooble waxa la filayay inuu Xasan Sheekh Maxamuud uu weerari doono daaqada uu kala bixi doono uuna runta u sheegi doono u dhigi doono war xasanow talada dhulka dhig hadda koorsaano kala magiciisa farmaajo ku dhignay adigana waan ka dhigi doonaa balse waxa la yiri god walaal qodin hadda qodinaha dheereen ku dhici doonta lama ogo Rooble ninkii soo doortay oo keenay oo ra'iisul wasaare inuu noqdo ka dhigay oo farmaajo ah ay sabaxad u kaca waa kana Xasan Sheekh Maxamuud waagi ololaha uu watay ama inta badan uu ololaha ugu jiray hadallo wuxuu saarnaa laxamo fiican u saarnaa hadda waxaan ogeyn daawadayaal waagi uu tartamay ninka dhiraado Xasan Sheekh Maxamuud inta badan oo mucaarad ku ah inuu saarnaa laxamo farxaan oo soo bax dhiiqaal waa lagu gelaya maandhow ka joog ya hadallo wuxuu saarnaa micno leh oo inta badan maamada qudaarta ku gadmisa maamada miisku kala bakaaro ee xataa jeegada caanaha idii soo qaatay eerno milisay maandhow ka soo bax filada farmaajo filada ka soo bax haddaba marka Rooble waxaan ogeyn in uu khudbadiisu uu weerar toos oo ku taabsan doono ama uu ku jabsan doono Xasan Sheekh Maxamuud laakiin khudbadu wuxuu keenay aan naf lahayn haddaba adiga muuqaalka daawanaysid Rooble khudbada uu ka hadlay iyo sida ay isleed uu hadli doona ama uu hadlay fikirkaada ay faalada qayb toos ay comment ka soo dhiibo Rooble ex ra'iisul wasaare hore warqad uu soo qortay inta badan waxa lagu tilmaamay warqad aan micno lahayn